إلهي وما له إيدني دي كوريسي أنا لو قلت كني كل هذا أبغى بينهن لكن زي ما سنة برواقع نقولنا ورتع الحمد لله أنا الآن تذكرنا يسوع سامحه وعكروا أنا دي شيء يا أفرف علينا يا بريء هو الإسحام يا حقي وحقوتك والله حمنا يا ذاتك دولة وسيء قبلك وين نروح قبلنا إن شاء الله تعالى وحوق عصورين صمرة وعن لا هاي وحقبت إلا موتشي أيام رمضان أنت وقت كانوا راح لين وحقبت موتشنو وأين وضل سلك عشانه وضله أين سلك عشانه وأنا أنت حوق هذا بيحنا إذا كنا نسكت عشانه أين قدي سمينه وأين وحقبت كاس إن شاء الله تعالى وضل وطن كفرنا إلا نحبوه وضل بوابته الناس بعدين مركا إن الوضع وقهرت عمر هو عاقف فينا كأنه كدبنا أين نسكت عشانه أين سيد أين وضل وحقق قبلنا أين أين فلقت قبلنا أيانا هذه كاسنا يا صوت يارمين إنه وحقق قبلنا أين وضل إلا هرجع سبنا إنه وأنت على عشور تاع صوب هذا أنا وما تونا نعنو إن الواحد يكون قبلنا تونا إذا كنا سكاي ببرتاع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي حين قال عماشا وحين كصوب حني طبقي معلومات إلهي كدارتي قرآن كيسا كريم كأو كدارتي وحكو جرتي يوم العرفة أو أكور هايستان مالين تاسي وينيد أي leedahay iyo barakada ay leedahay waxaynu joognaa maanta يوم العيد الأضحى baynu joognaa waa maalin barakaysan weeye ilaahay camaasha mar labaad ha inaga aqbalo waxaan u mahadnaqayaa waan hambaliyada ciidda u dirayaa dhammaan shucuubta islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda ku nool gobolka Hawd ayaan ciid mubaarak leeyahay waxaan leeyahay culimadii halkan inaga wacdiday waxay noo sheegeen wacdi qurux badan waxaan jeclaystay Sheekh Cabdilaahi markuu inoo wacdiyay inuu noo sii wado sababtoo ah kelmado korkeena ku waajiba ayuu inaga hadlayay ragga ku waajiba dumarka ku waajiba maamulka ku waajiba cid kasta oo waxa weeye dani ugu jirta ku waajiba ilaahay isagana miisaanka xasanaadka u saaro culimada kale ee gobolka joogtana waxa weeye waa culimo barakaysan ilaahay miisaankooda xasanaadka ka kordhiyo ما جعلين هذا البدن إذا كل هذا ما يركع إيه ما يركو حجينك إيه حق هيها إيه دمان من إشبال تيجا أما الدولة دهوسة اللي بانا الدولة دهوسة وها أي سوق أرسيين إن يديارو يدين إن أي وحقوق قبطان عشور تكسر بحذا قبل كهود وحان يدوكو بشارينيا inay ii sheegeen fulinta oo ka kooban maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo xooghayu inay hayaan lacag ay ku iibinayaan cagaf si looga kaaftoomo in aynu cagaf soo koraysanno ama soo barino cagaftaasi waxay wax inaga anfacaysaa in aynu marka hore magaalada dhexdeeda bilic ugu samayno hadday waddo tahay iyo haddii ay beeraba tahayba inaynu bilic ugu samayno waxay kaloo inaga anfacaysaa cagaftaasi beeraha aad ku qodanaysaan miyiga inaa u heshaan cagafa iska leedihiin oo nin walba shidaalkiisa ku shubto waxaa kale oo gudida fulinta iyo golaha deegaanku ii ballan qaadeen inay wadayaan hawsha oo ay bisha ka dambaysana hal iska rogo soo kordhinayaan haddaynu intaa helno cashuurtuna inoo sii socoto insha allah waxaan rajaynayaa inay inoo sii socotee وأين إسكاشنو وحين بلع سمين كرنا مجالة جوده هذا أيه نجدد كنيس كرنا وحين سوتشي دي كرنا وطدا إسكو حريصا بل جوبل لي هرجيسا أيه نسوتشي دي كرنا كين كرنا مجالة مرهتي ما ملكي دولة دهوسة إن بكرنا قالوا سوق الهاي أي أكترين إن أي وحوي وحي سوق الهاي lagala xisaabtamo annaguna diyaar u nahay inaanu kala xisaabtanno iyaguna ay diyaar u yihiin inay wax muujiyaan annaga ka dawlad sare ahaan iyo idinka ka shacab ahaanba waxay nagu waajibaa inaynu ka qayb qaadanno arrintaa
oo dadku markay isku tashadaan ee neefkooda xoola alla yimaadaan ee neefka geela alla yimaadaan waxbay bedeli karaan waxaan leeyahay aynu bixinno qof walooba sekadaa kaa gelaysa sadaqada kalaa kaa gelaysa xasanaad baad ka helaysaa marka waddo la dhisaayo ama magaalo town balan loo samaynayo mid walba xasanaad baad ka helaysaa markaa sidaa maayarku sheegay waa si aanu ku wada tashanay in magaalada waxa weeye laga bilaabo maanta wixii ka dambeeya ay u guntadaan maamulka dawladda hoose iyo xildhibaanada dhammaanteenna waxaynu doonaynaa inaynu hareeraha iska taagno qof walowba loo fududeeyo qofkay wadda ku soo beeganto ee la yidhaahdo gurigaaga waddaa ku soo beegantay waa inuu ogaadaa waxa weeye waxa ku soo beegmay jid inuu yahay ummadda u dhaxaynaya markaa waxaan leeyahay hawshaana waynu isku berbertaagaynaa waxaan idinkula dardaarmaya alla subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu khuduwaati shaydaan war dadka muslimiinta ahow diinta dhammaanteed qaata marka layna leeyahay waxa weeye salaada haddaad 4 salaadood tukato oo midi ay kaa habsaamiso 5 salaadood mid qaadku kaa habsaamiyo hadda diintii dhammaan maad wada qaadan haddaad xoolo leedahay oo aad sekada iska bixin weydo diintii dhammaan maad wada qaadan haddii aad carruurtaada iyo haweenkaaga u dhibirsanaan weydo oo sidii nebigii sharafta badnaa salawaatullaahi calayhi wasallam uu haweenkiisa u maamuli jiray aad u maamuli weydo diintii dhammaan maad qaadan waxaan leeyahay waar diinta dhammaan aynu qaadanno yaynaan raacin tallaabooyinka shaydaanka walaa tattabicuu khuduwaati shaydaan tallaabooyinka shaydaanka ha qaadina waxaan sheekh cabdilaahi ku mahadinayaa aan ku taageersanahay raggii mas-uuliyaddii way gabeen xaqiiqatan raggeennii qaad baa leexsaday waxa dhibaatada imika halkan waa tii inoo naqowday bankaan u bixi jiray wallaahi waxaan tirakoobi jirnay bal inaanu ogaano yaa xoolaa la jooga maalin aanu bankaa u baxnay oo aanu in badan soconaynay dhammaan xoolaha dumar baa la wada jooga dhammaan taa idinay ugu dafiri mayso waxaanu ku aragnay 2 kuray oo yaryar oo agtooda ku ciyaaraya daraasad bay maalintaa igu fillayd waxa kale oo waxyaalaha cajiibka ah oo aan marka banka u baxa arkaa nin waliba caagad caanaabu guriga kala soo baxaya hadda waxaa laga yaabaa in carruurtii aanay saaka quraacanin gabadhiisiina aradan tahay isaguna naftiisa waa radan yahay caagada caanaa uu ku soo wada magaalada muxuu ku cunayaa qaad buu ku cunayaa tabliqaynu dhanaarkaa waxa weeye carruurtiisiina ka gaajoonayso haweenkiisiina ka gaajoonayo ee aan garanahayn mudda caanaha yar ee ilaahay candhada xoolaha ugu soo riday war mas-uuliyadda ilaahayna saaray aynu qaadno oo waxa weeye qof walba mas-uul iska dhig oo raggu mas-uul ha iska dhigeen haweenkuna mas-uul ha iska dhigeen wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi